عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa mar labaad ana nabad qabanay hor fadhido waa walaashin deeqo YouTube channel kaad naga daawanaysan waa YouTube channelkeeni tubta toosan asxaabta inta hore la sii joogtay waxaan leenahay ma sha Allah aad iyo aad baad mahadsantihiin asxaabta cusub waxaan leenahay ma sha Allah ku soo dhawaada qacmo furan iyo qalbi jecel ma sha Allah wax kula haysmartiyeen madashaadi waaye waa maanta iyo muuqaal cusub qof walba xilliga uu tahay wanaagsan maanta waxaan rabaa laba muuqaal oo wallahi markaan arkay dareenkayga uu aad uga xumaaday in aan ila wadaago dareenkaas oo ku socda amba ka turjumaya maamooyinka Soomaaliyeed amba hooyooyinka Soomaaliyeed sida ay nolosha ula daala dhacayaan iyo dhibka haysta ee Allah subhanahu wa ta'ala moojane qof kale hunan ka warqabin bal waxaan rabaa videogaygan yar in aad ila daawato oo ila dhageysataan insha Allah bal waa kan videogan ila arag videoga aad arkaysaan kulli waa wax bulshada ka dhaxdhacaa waa gabadh Soomaaliyeed oo ninkeygii yacni u xanaaqsan oo rabta inay war ku qabsato oo rabta inay meel ninka iska saarto wuu soo galay qolku galay waxa isla dharkii wax uu iska badbadilayay yar sug kadib ayaad warkii ku qabsan doontaa amba wixii marka hal isku haystay had ninka kala hadli doontaa waxayba aragtayba ninkii salaadii ku jira Allahu akbar bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxa istirwiliga salaadaas ku qabeey waad sugiye sug muuqaalka la saaco muuqaalka ka soo daragtaa gabadhi markii wiilkii markuu salaadii saa u galay gabadhi waxay ku halka way taagnay taas inta labada kaliyood u qabsatay saas u sugaysay wallahi waxay tir salaadan ya wadko ku qaadamaayna waad ka bixiyee waa la is sugayaa ninkii muxuu sameeyay ya sidaan hore niigu soo sheegayba nimanku jaqjaqda iyo hal isku haysto iyo hal la sheego iyo kan muxuu ahaa iyo kan kale muxuu ahaa nimanku qodobkaas kama helaan ninkii muxuu sameeyay salaadii iska dheeraystay qab markii meesha ka tagi weyd markuu ka bixi salaamu calaykum salaatu calaykum qab laba kale waxa ku yiri meeshii hurda ku qabatay saa u jeedaan siday ninkii u kor taagneed bay waxaan ku yiri barkin inay meeshii dhigatay ay ku sugaysay intuu salaad ka tukanay de masalaad ba dhamaanaysa leen waa nin naagtan warkeegii hadalkeega aan rabin masalaad ba dhamaanay kalba markuu laba dhameeyo laba kale iska xidha laba markuu dhameeyo laba kale iska xidha markuu salaadii ka maraayo 240 way still naagti marna makhadada dhanka ugu seexanaysa marna dhanka ugu seexanaysa buu videoga niga go'aysaad oo aragtaan marka waxaan rabaa fikradda ku duugan videogaas aan rabo inaan kula wadaago waxay tahay wallahi dhibaatada weyn ay raggu dumarka ku hayaan Allah subhanahu wa ta'ala uma og ragga maanta gabdhihii waxay ka waayeen nasiimo ya nimankii maanta waxaan ku yiri nasiimo gabadhi maanta dhan way daashay saakaad war gabadha ka tagtay war ilmihii wax u sii kardeysay war gurigii aad ka tagtay eed meel kasta makhadada iyo barkinta iyo weelka iyo wax kasta iyo kabti aad bixisay iyo sharabaadkii shalay aad bixisay iyo waxaan ku yiri dharkii aad 4 bari ka hor bixisay waxaas oo dhabay maanta dhan meereysay war ilmahaagii bay ku musqul u baahan iyo ku naftiisa gaajo ay hayso iyo ku naas rababa intaba ay sii wada ilaalinaysay marka adiga shaqo ka imato maxaa gabdhihii Soomaaliyeed u diiday inay wiilashii u naxariistaan nimankii maanta gabdhihii maanta waxay sheeganayaan waa run nimankii wanaag lagu hayo naxariis lagu hayo nasiimo lagu hayo war Allah laga boqo war halkee loo socdaa war waxa la leeyahay maanta cuqubo ayaa in dul saaran xanuuno aanan adduunka hore looga arkin ba maanta la arkaya wallahi waxaan leeyahay cuqubooyinkaas haday nimanka Soomaaliyeed dumarka mid ay ku hayaan haday ka deyn waayaan waxa ay wax ka badan ba soo socdaan leeyahay wallahi videoga ay markaa arkay marna waan qoslay ya marna wallahi waxaan ku yiri gabadh maanta dhan daalaysay oo maanta dhan guriga shaqadeeda haysay ba marka uu ninkii soo galay istiraahada bal wax weydii amba ugu dhawow nimana horta waxaan leeyahay gabdhuhu su'aal hadii ku weydiinayaan kama dhigno maanta dhan inay marmayaan mar waxa dhici karto waxa islaada amu ku naxariista amu duruufta aad ku jirto u fahmaa amu si kalaba kula dhaqmaayo dumarku waa iska masaakiin waa sida ilmaha maanta dhan raba in la ciyaaro in la qosla raba dumarkuna waa saas oo kale ninkan salaada dheeraystay 240 rakacadood tukaday ama iba naagtiisu rabtaa wax wanaag inay la sheer garayso ama iba wanaag u sheegaysaa يا ور الله سبحانه وتعالى نبيين واكير صلى الله عليه وسلم متك أدون كننك أجو ناكسن
amba ugu yacni rabo inuu ku daydo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, war waa midka haweenayda uu qabo iyo reerkiisa u wanaagsan una dabacsan. war aw midaasi war maanta qof kasta nimankii waxay leeyihiin dumaro ma wanaagsanaataan, dumarkiina way daalan waxay leeyihiin rago wanaag iyo ixtiraam iyo naxariis midba niguma haynay halkeeliniisitaa. war markaa maxaa qaldan? war labadiiba sunnihii nabigeena iyo wixii uu ina faray baa laga tegay. siiba aan waxa la hadlayaa wiilasha waxaa leeyahay wiilow allah subxaana wa tacaala bulshadan maanta nool adaa lagu weydiin doonaa ee wax badan intaad naagta ku madax adayg aad is leedahay waxaa kule allah subxaana wa tacaala inuuna qaflada maanta ina haysata mid ka daran ayaa soo socotee. waa rago waxaan leeyahay dumarkiina u naxariista, ragow dumarkiina u naxariista. videoga labaad rabo inaan ila wadaago oo maanta rabo barnaamijkeenan inaad marna waad qasli doontaa marna wallaahi hooyo wax dhashay haddaa tahay waa video ku damqi doona ayaan ku leeyahay. bal videogeena labaad waa kana ila fiirso. waxaad videoga uga jeedaa waa maamo adiga afrikaan kulley gabadh xijaaban maahin laakiinse waxay wadataa wad aragtaa ul ayay wadataa, cunugii ayay dhahday kitaab akhri amba wax akhri bay tiri. intuu wuxuu akhrinayay sidaas u qaatay buu muxuu sameeyey? horta kan waa kitaab iga dhig subxaana wa tacaala, kitaabkii lagu ciyaar ma wanaagsanay. wuxuu iskaga dhigayaa buug nin akhrinaya, buugii isagoo sidaa u akhrinaya buu halkaasna mobilkii gashtay waad aragtaan. marka ay soo kor marto page-ku saa u rogayaa wuxuu iska dhigayaa nin wax akhrisanaya. markay fadhiisatana wixiisiibu iska daawanaya fartu sidaa ugu walaaqaya. subxaana allahi alcadiim. wallaahi waxaan leenahay dumarkii zamankan maanta waxaa ku dhacday nasiib. way nasiib xun yihiin ma dhihi karnee wixii dhacay bal allah subxaana wa tacaala waxaan leenahay aliyahayow annaguna bal nafahaygaan saxaynaaye bal ilaaha waxaan qaban kari weyno adigaa cadiime oo qafuuru raxiime oo qawiye ilaaha waxaan leenahay bal waxaa naga kala daadsaneen maanta hagaajin kari laana bal ilaaha umuurahayga hagaaji. bal ilaaha waxaan leenahay adduunkan dumarkiina dhan bay u daaleen, raggiina dhan bay u daaleen, ilmihiina way nagu dhex wareereen. waxaan leenahay ilaaha subxaana wa tacaala ilaaha bal midii ilaaha wixii khayr la adaa u jeeday ilaaha gabigayga na soo wada hanuuni baan leenahay. midda aad videoga aad aragtaan waa midii caruurtii la daalaysa, caruurtii aad ku daashay oo noocan oo kale hadday noqoto ka waran. ilmaha maanta dhan waxaad siinaysa nadaafadiisa aad ka shaqaynaysa, wanaagiisa aad ka shaqaynaysa, aad rabto inuu cilmi barto amba diini ha noqoto amba mid maadiyaba ha noqotee ee ilmihii isaga oo intaa leeg isku dayaaya inuu waalidkii khiyaamay ka waran. halkaa iga muuqato dumarkii inta ay jacayl iyo wanaag ay siin lahaayeen ilmuhu waalidadii amba dumarkii waxaan ku yiri dhan ilmihii bay kala daala dhacayaan, dan waxaan ku yiri dhanna ninkiibay dagaal kula jiraan, dhan ilmihiibaa waxaan ku yiri iyagana sidaa ula dagaalamaya. wallaahi dumarka soomaaliyeed amba dumarka maanta meel kastay joogaanba wallaahi waxaan leeyahay waxa ku dhacday dumarkii maanta waxa ku dhacday waxaan ku yiri dhibaato aan la soo koobi karin. laakiinse anu wallaahi waxaan leeyahay yaa laba jeer been magaca allah subxaana wa tacaala ugumaan dhaarin. dumaroo waxaan leeyahay meesha wax ay ka saxmayaan baan rabaa maanta inaan ku taabsiiyo. ilmahan aad arkayso oo isagoo intaa leeg hadda isku dayaaya inuuba wax kaa qarsado oo been kuu sheego, wallaahi 10 sano iyo 15 sano markuu gaadhana waxaa dhici doonta inuu telefoonka kaa qaban waayo. waxaa dhici doonta marka aad saacadaha uu guriga kula joogo inuu israahdo midan goormad ka bixiyo banaanka markuu u baxo farxad hu dareemayo. waxaan leeyahay dumaroo tala maanta inaga inay taala intii dumarkii hore soo dhaaftay waxaan leenahay wax tagay tiigsimaad male waxaasina dhaaf. laakiinse maanta aan joogno adigu bilow, anigana nafteeda kaga bilaabaya midaas. waayo inagu ilmaheena iyo gurigeena han siino waqtigeena badan. ilmahaaga naxariisi, ilmahaaga wanaaji, ilmahaaga ixtiraam. ninkaaguna si kastuu u xun yahay waxaan ku leeyahay ixtiraam oo ilmahaaga hortooda ku ixtiraam. ilmahaagana beritoola wuxuu arki doonaa labadiina qof waaweyn oo ixtiraam iyo jacayl si kasta oo nimanka Soomaaliyeed ay jacayl ku siineen. adigu muuji, adigu ahaw mid cafaafiyada, adigu ahaw mid naxariisata, adigu ahaw mid ninka wanaag badan siinaysa. ilmuhu si markaa oo naxariistaas
aad u falayso ninka iyo ilmaha si ilmuhu adigana beritolo kugu naxariisto. laakiin haddaad tiraahdo maamo taagan baan aho ilmahana waxaan ku yiri waxa ku fadhiisani ad adeeg ninkana ad adeeg baan kula dhaqmi adigana ogow ninkuna uu kaasii cararay uun ilmahana qacanta ku hayn maysid hadhow waxaad is arki adigoo meel cidlaa kaligaa taagan ayaad is arki doontaa. markaa waxaan leeyahay videogeena ma rabo inuu dheeraado. dumarow mid aan kusoo xidhaayo waxay tahay ilmihiina waqti geliya iyaga ayaa dhaxalnii ah ilmahaaga ayaa dhaxal maanta haysataa. ninkan Soomaaliyeed raadinayso adigana shalay meher baa kuu keenay kuna tasho ninkani beritole inuu noqon doono naakala ninkeega waayo adigu ninkan gacanta kuma soo samaysan hooyada kuma dhalin Allah subhanahu wa ta'ala adoon u guriga ku dhex dhigay maaha waa nin shalayba adiga maskax kugu soo xireeyay iyo been de mid kalena uu soo xireyn karaa. markaa waxaan ku leeyahay dumarow dhaxalka qudhahaata ee aan niga dhammaanin ee aad haysataan waa midda ilmihiina naxariis iyo wanaag iyo waxaan ku yiri gashada kalgacal aan la soo koobi karin una noqo qof wanaagsan oo wanaag ilmahaaga kaga daydo. adigu ilmahaaga been u sheegin isna been kuma sheegi doono. adigu ilmahaaga waqtiga uu ku baahan yahay uu rabo inaad la hadasho uu rabo inaad u sheekayso haddaad waqtiga u sheekeyn weydo 12 sano maalintuu gaadho waa qof tashanaya dad kale oo waqti siinaya oo asxaab iyo banaanka uu ka baranayo waqti la qaadanaya. saacadaha adiga uu kula joogo wuxuu haanayaa saacada madow uu isleeyahay goormaad gurigan ka bixi doontaa. ilaahu subhanahu wa ta'ala awlaada noo soo hadii maan leenahay. videogeena maanta halkaas buu ku eegyahay waxaan rabay labadaas inaan kula wadaago. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. fadlan haddaad halkan soo gaadhay ood kamid tahay asxaabta quruxda badan leh hore noola sii jeegtay waxaan ku leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. haddaad kamid tahay asxaabta cusub amba qof cusub oo maanta nagu soo biirayna fadlan waxaan ku leenahay ismartiyeen channelka subscribe noo saar meesha gaduudka naga madoobay baan ku leenahay sidii caadadeena inoo ahayd. waxaan leenahay ha lagu saliyo xabiibkeena allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.